بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. إله دنبigayga waalidkayga badhaaf laba tiiroon umada muslimiinta meel kastoo joogtaan salaanta islaamka idinku salaamaya inta codkayga taqaana inta muuqayga taqaana inta muuqaalkayga taqaana dhammaantiin inta inaga bugta Allah inoo caafiyo cimri dheer iyo caafimaad qab baan Ilaahay weydiisanaynaa maasha Allah. walaalayaal maanta waxaan wax kale si kale anigu u sameeyo waan garan waayay sabuurad ma haysto iyo qalin aan wax ku sharxo marka sharaxaadii maanta waxay ila gashay inaan sidan u sameeyo maasha Allah. horta qofka bini aadmiga waxaan ka soo qaaday galaaskan cad runtii waxa weeyaan in aan wax isku tusno oo aan wax isku tusaaleyno maaha wax ciyaara qofka bini aadmigiina nolosha Sheekh Mustafa yiraahdo haddaanad fahmin adigoon fahmin baad ka tagi haddaad fahantayna sida loo noolaadaad baranaysaa maasha Allah. inagoon fahmin haddaynu ka tagno waa nasiib daro inaynu nolosha wax ka fahno jirkeenu sida u shaqeeyo sida ay wax u qaato sida wax u cuno ilaahay baa xanuunka keena laakiin ilaahay ka soko ilaahay wuxuu ku dhan ku bariya meel baydhsan seexo haddii aanad deyr iyo aqal dhisanin roobka kamad iyo dabaysha jirkeena iyo caloosheenuna waa saas oo kale haddii aanaynu ilaalinin runtii dhakhtarra bacada wooyin baynu sidanaynaa bacada wooyinan looma baahna ilaahay dhulkeennina horta markii horeba cadaanka aynaga dhalingadiyey na gumaysan jiro maskaxda laynaga gumaystay baastiya bariis baa bilqasab laynaga dhigay aanaynu samaysanin oo cuntadeeni waa laynoo diiday haddana ima ilaahay shaqalmis baa yidhaahda u duceeya qofka ku dhiba qolayna dhibto jaarina laho carab la yidhaahda imakanayna gumaysata oo sharaabo caruureed iyo tubaakadii adduunka ugu badnayd iyo biyayo sonkor iyo midab inta isku soo daran bay waa sharaab maangaxa iyo jawaafa waxay kusoo qorayaan saytuun iyo maanga iyo bay kusoo qoraan banaana iyo xagee ka keeneen allaba ma siinina inaga ilaahayna siiyo inaga agdhiga laakiin dameer ma la saaray miyaanna yidhahdaa talmay inagu waxun inagu nisbayn maaye xabad banaanaha haddaad maanta intaad biyo ku darto bururu ka siiso ood mashiinka u geliso sonkortana ka dayso sonkorta Brazil bay ka timaadaa Latin America bal intay soo socotaday nin qayrkaayaa ka iibinayo lacagtaas inay nafaqa male hal nafaqii kuma jirto lacagtaadina way ku dhamaatay adiguna waad ku dhamaatay marka qofka bini aadmigihi maskaxda jirkeena saliska iyo marka ay wada shaqeyn waayeen maskaxdu fahan ma yeeshaan dabadeedna cuntooyinka aynu cunno marka ay xumaato marka diagramkan marka wax kale oo noogu tilmaamay garan waayay waxa xubintan waa jirkeeni wadnaheeni beerkeeni kaliyeeni caloosheenii markay dhaato saasay u caday oo qurux badan tahay xataa waxa la sheegay caruurta cuntada lagula degdego mar hore lagu bilaabo sidii wuxuu caanaha koriyo caruurta iyo biyahooda ilaa sanad intay gaadhayaan ilmaha ka dambeeya cuntada allergic uu ku yar yahay ilma 4 bilood jira la arkaysaa la siinayo cunto lagu daldalayo oo la leeyahay waa abaydin oo cunto nooc kasta la siinayo hilib jiidan wax kale maya caruurta waxa u fiican in mar dambe lagu bilaabo cuntada caanaha nafaqada iyo naaska hooyada loo badiyo waxyaabo badan baa inaga maqan marka caruurta had iyo jeer allergiga ku aragta waa caruurta hooyadu 4 bilood 3 bilood kolkuu dhaafaba calooshiisii oo yar caloosha yar cuntada yar caafimaadka waxaas way isla socdaan waxa fudud inagana koob caana inagu filan yahay koob biyo maalinta dhan waad ku shaqayn kartaa waxay ka dhigan tahay xabad arfakaada haddaad imka cunto waxay ka dhigan tahay macnaheeda dee meelkaaga waad qabtaa intaasoo fiber ku jirta intaasoo cunto kala nooca ku jirta marka ka waxaan ka soo qaatay waxaan idhi waa tan xubinteennii caafimaadka qabi kaliyeeni iyo beerkeeni iyo chronic disease waxa la yiraahdaa inaga berigii hore western chronic disease baa loo yaqaan cudurrada reer galbeedka hadda iyagu waxbarashay galeen iyo cuntadii ka kacaan dabadeedna way iska dhaafeen laakiin inaga bilayd wayno bariis ku hadhnay wali bariiska inooma baxo garowgeeni iyo masagadeeni iyo digirteeni wixii noo baxay waa layna nacsiiyey waayo nin kala suuq loo raadinaya marka anu waxaan la hal la dhaafo marka waxaan idhi waa kan waad cuntaa cuntada macna uma samaysid ma miyay idilaysaa ima dilayso dabadeedna saad ugu guraysaad macaan yeelatay dhiikar baad yeelatay waxaad yeelatay alsar nooc walba haddaba ma la bedeli karaabaa meesha taalla saasaad xashiishkaasaad saa waad cuntay cuntada maxaan ka qaadayaa
maxaa nafaqa igu jirta imise gram oo fiber ku jirta maxaa carbohydrate imisa la iga baahan yahay cuntada carbohydrate keebaa fiican maka xoolaha ka yimaada kun goor baan sheegay waxaan hadduu waraaba dhaawacmo ma kabmo laakiin hadday uu neef xoolihi dhaawacmo wuu kabmaa sidaasaan baad jirkaagii dabeedna wuu qaadi kari waayey saliskii iyo maskaxdii oo wada shaqayn kari waayey brainkii dabadeedna disconnection baa ku dhacay cudur baa jirkaagii ku dhacay dabeedna waxa lagu yidhi macaan baad leedahay dhiikar baad leedahay cholesterol baad leedahay inta maanta soomaali la ciirciirayso ayaa lagugu soo xaadiriyay adigoo oon ogeyn oo yaaban dabeedna markaad yaabtay baad ka diga rogaystiro maxaad samaysaa baad istiri adigaa markaa sidaa markaad u buuxiso jirkaagii oo sidaa u buuxsamo markaanu aad xashiish saa ugu gurtay kalyahaagii iyo beerkaagii way xajin waayeen cuduraa lagugu sheegay taasi waxay keenaysaa waxa lumay wada shaqayntii jirka mar haddaad kaliyihii nafaqada u baahnaayeen siin weyda beerkii kaliyaha u baahnaayeen siin waaya timirta aynu cunno inagu timiraha nooca ugu qaalisan inta lasoo iibsada maalintii xabad laga cunaa si aanad dhibaata kaaga imanin waayo timirtu waa dawo laakiin haddaad iska badiso wixii dawaa haddaad iska badiso macaanka sonkortu iyadu nafaqa male waynu sheegnay waa cudur qofkii soo iibsada lacagtiisa ka iibsada isagay hawlu taallo tahay waxyaabaha jirka aadka iyo aadka ugu wanaagsan ee aan la dhinaay garayn karin la dafiri karin waxaa ka mid ah ciirtan kafirka ciirtaasi waa ciirtay Soomaaliya oo kale bakteeriyada fiican bay dhalisaa qof walba aqalkaaga markaad joogto iska cun dadka alsarka yeeshay way ku yar adag tahay laakiin way daweysay dadkii xataa alsarka lahaa marka taasaan anigu idin kula talinayaa waxa kale oo aan markii aad warwartay bacda waa lagu soo qoray kani waa cholesterolka kani waa diabetica kani waa dhiikarka mar hadduu jirkaagu furmana markaa mar baad fikirtay adiga oo markaad yaabtay dee jirkii buuxsamay unbaad fikirtay haddaba waxaan ka hadlaynaa maanta ma loo soo celin karaa waxyaabaha qaar oo bacahan iyo dawooyinkan marhaa waa la iska dhimi karaa tayroodhka masalan haddaad qabto oo aad waxa tayroodhka hooseeya ka sarreeya maaha ka sarreeya dhakhtarkaaga waa inaad la socoto laakiin ka hooseeya lowga ah ee hooseeya haddaad waxa badda badsato waxay naga dhiman milix badda ah tusaale yar baan idinka soo qaadaya haddaad waxa badda badsatood kalluunka iyo makareelaha iyo tuunaha iyo salmanka iyo waxaa badsato wuu kacaya kor buu u kacaya maxaa dhacaya in dawadii lagaa yareeyo marka hadda maalmaha ka mid ah ayaad fikirtay adiga fikirkaagii waxa kusoo dhacay waa kanoo anigu waan buuxsamay waxaanoo dawooyinana ma qaadi karo waxaa ka mid sidaan yeeli karaa deedna markaad fikirtay waxyaabaha kii ka ah waxaa weyaan cuntadaadii unbaad bedeshay waad bedeshay saasunbaad u bedeshay maalinba inbaa kaa qaadmaysa maalinba dabeedna waad maydhayba jirkaagii saasaad u maydhay waad iska maydhay intaad iska qaadi karto waad iska qaaday saasaad iskaga maydhay dabadeedna cuntadaadii waad bedeshay cunto fiican baad cuntay kanoo kale aad cuntay yogurt baad soo qaadatay khudradaad soo qaadatay lindhanaan baad soo qaadatay sinjibiil baad soo qaadatay cuntooyinkii spinach baad soo qaadatay dhiiggii baad kordhisay wax walba maasha allah cuntooyinkii oo dhan baad dabadeedna saasunbuu jirkaagii markii dambe u caddaaday oo wixii xashiishkii saarnaayoo dhan saasaad uga dejisay dabeedna dawooyinkii dhakhtarku kaa kala yaraynaya may fahantay tani waa daqiiqo way ku dhegdhegtay laakiin hadda wax kale ahaan layduu ka maydhmi lahaa marka ani waxaan idinkula talinayaa in aan jirkeenna wax badan ka bedelno cuntada haddaan bedelno jirka hoosena waan bedeli karnaa maasha allah kolley hadalkaan idinku dheereeyaan u malaynayaa wabilaahi tawfiiq cuntada la bedelaa caafimaad baa ku jira ha is odhan cunto waa laguu qoray inuu xanuunkani ku hayo xanuunada badankooda waa la soo celin waa laga bixi karaa haddaad barato cholesterolka wixii saliidda laha iska yarayso wixii waa laga bixi karaa marka hays odhan dawadan weligaa yalaha waad qaadanaysa ha aaminin waxaad aamintaa inaad jirkaagii dib u dhisi karto u ribeer garayn karto waa marada markaa dib loo karkarayo oo kale inaad jirkaaga isku karkaran karto wabilaahi tawfiiq salaamu calaykum